وناسن ومركل إيو برنامج كيان شيكوينكا جعيلك شكل مانتا شيكو آدو حساب ومددر شكل المجد وحلي حشوتك هبلها إيو حروك جعيلك شيكذا وحقر عبد الرحمن محمد قول ومركلت iyo sheekadeenii xiisaha badnayd ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka oo qaybteedii toddobaad ay inoo joogtay Salma oo markii u horeysay warqad ka heshay Subeer tan iyo intii ay timid dalka Jarmalka waxayna gashay qolkeedii oo ay ku fariisatay sariirteedii kadibna warqadii ayay bilowday inay akhrido haddaba bal aynu eegno qaybta 8aad iyo warqadii uu Subeer soo diray wixii ku qornaa Subeer waxa uu warqadda ku bilaabay walaalo waxaan u malaynayaa in aynu kala maqnayn muddo aad u badan waxa kale oo aan ogahay in aan u bohliyoobay wada hadalkeennii wada joogeennii iyo wajigaagii furnaa waan ogahay halka aad maanta joogto ama aad maanta taallaa waa meesha aan u malaynayo in aad ku dhammaysanayso inta ku hadhay noloshaada mana hilmaansani in aad tahay xaas laakiin haygula yaabin qoraalka ama dhambaalka xambaarsan hadallada kala duwan kuwaasoo isugu jira waano dardaaran iyo wax isu sheeg haddaba Salmaay sida aynu maanta u kala tagnay ee aynu u kala fogaanay ayay in badan oo inala madahi u kala fogaadeen kuwa kale oo badanina ay isugu soo dhawaadeen mana aha in aynu canaanano nafteenna ama imtixaanno waayo waa qadar Ilaahay walaalo hadiyadan aan kuu soo diray waxay la mid tahay taan u diri lahaa walaashayda yar maadaama aad noqotay adiguna inantayadii saddexaad waxaan uga jeedaa haddaynu isweynay ama calafku iskeensiin waayey kumaynaan kala go'in walaaltinimada laga bilaabo imikana waxaan ku ahay walaalkaaga keliya ee aad adduunka ku leedahay waxaanan kugula dardaarmayaa in aanad iloobin iina xasuusnaatid sidaas waxaanan kuu soo diri doonaa hadba siduu yahay waayahay adiguna sidoo kale ayaan kaa warsugayaa inaad iigu soo dirtid wixii kolba kula soo dirsa sidaas iyo nabadgelyo jacaylki qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kula haydagtayda xasuusigu qaaliyay haddii aynu halkaa ku dhaafno sheekada qaybteedii ama wejigeedii hore bal aynu eegno 4 sano kadib wixii ay ku dambeysay sheekadii Subeer iyo Salma dhexmartay su'aasha xiisaha leh aynu afjoogta uga dhigayno wejiga labaad ee sheekadu waxay tahay 4 sano kadib Subeer iyo Salma waa sidee muuqaalkooda nololeed muxuuse ku dambeeyay waayahoodii jacayl muddo ilaa sanad gaarisa markii ay Salmi dalka ka sii maqnayd ayuu Subeer u dhoofay dalka Pakistan halkaas oo u tagay waxbarasho balse Subeer sababaha ku kalifay inuu waxbarasho dibadeed doonto waxa ugu badnaa reerkooda uu ku qasbayay inuu guursado gabadh ay u soo xuleen maadaama uu ku guuldaraystay sahankiisii muddo dheerna laga sugayay inuu guursado kadibna wuxuu Subeer cadaadiska reerkooda kaga yimid uu kaga marmarsooday inuu doonayo waxbarasho jaamacadeed Subeer wuxuu ka soo laacay 3 sano iyo badh waxbarasho jaamacadeed isaga oo soo bartay cilmiga dhaqaalaha kadibna wuxuu ku soo guriga noqday dhulkiisii hooyo iyo gurigoodii Subeer muddada uu jaamacadda ku jiray ma badnayn xiriirka wada hadal ee dhex maray isaga iyo Salma waxayna wada hadleen ama xiriir dhex maray muddada 3 sano iyo badhka ah in ka yar 10 jeer iyadoo ay sababtuna ahayd dhinaca Salma Subeer markii uu Pakistan ka soo laabtay garoonka diyaaradaha ee Hargeysa waxa ku soo dhaweeyay waalidkii iyo walaalihii oo in ku dhow 3 saacadood ku sugayay waxaana loo soo daadiyay dhinaca iyo gurigoodii Subeer waxa ka muuqatay dareen waxoogaa jimcoon iyo muuqaal aan ku didinayn oo yara laaban iyadoo aqoontii uu soo bartayna ku soo kordhisay bisayl maskaxeed iyo garaad waayeelnimo hooyo waana dhagixiisu jihana dayahana urona
tacab laysku dhaafyo dhaxal iyo dad noolku dhiranaan ka sugayaa dhaxal iyo dad noolku dhiranaan ka sugayaa dhiranaan bal haddaba aynu dhinaca Salma eegno iyo halka ay xaaladdeedu ku dambaysay muddada 4 sano ku dhow. Salma waxa ay runtii ku indhadaraan dartay dhaqankii iyo noloshii ay ugu tagtay dunida reer galbeedka, waxayna si hawl yar u ilowday waayihii nololeed iyo xushmadii caashaq ee ay maalmo badan la soo wadaagtay Subeer. Salma 3 bilood oo kaliya markii ay joogtay dalka Jarmalka ayay aqal gashay, waxa ayna oori u noqotay inaabtigeed Mursal. intii uu Subeer ku sugnaa dalka Pakistan marar dhowr ah ayuu telefoon kula soo hadlay Salma, waxayna ugu jawaabtay hadda meel baan ku degdegsanahay aniga telefoonka kugu soo celin doona. Salma waxa ay noqotay qof dareenkeedu uu ka baxay xasuusta Subeer iyo wacadkii u yeel iyada iyo Subeer. inaabtigeed Mursal waxa uu hore u qabay gabadh Jarmal ah oo u dhashay 2 carruur ah, balse ay isfureen sanado ka hor. 2 carruur ah ee ay Mursal u dhashay gabadha Jarmalka ee waqtigan waa dad waaweyn, waxayna muddo kadib markii uu aabahood Salma guursaday ka shaqeeyeen sidii ay aabahood iyo hooyadood isugu soo celin lahaayeen, taasi oo ay labada waalidba cadaadis badan ku saareen. aakhirkiina way isku soo noqdeen Mursal iyo gabadhiisii hore ee uu furay, oo mar kale ayay isku noqdeen nin iyo ooridii. hase yeeshee dib isku soo noqoshada Mursal iyo gabadhiisii hore waxay keentay inay Salma lumiso kalsoonidii badnayd ee ay ku qabtay markii hore ninkeeda, waxaana bilaabmay badmadow iyo qardoofooyin hor leh oo dhex mara Salma iyo odageeda Mursal. waxay arrintu socotaba markii ay Mursal iyo Salmi muddo 2 sano gaadhaysay isqabeen oo aanay weli wax ubad ah isku dhalin ayay maalin dudmo ku kala tageen. Salma iyo inaabtigeed Mursal markii ay muddo kala maqnaayeen oo ay xaaladdooduna sii xumaatay balse aanay isfurin ayay gabadhii Salmi go'aansatay inay waxbarasho bilowdo, waxaana gashay maxad lagu barto xirfado kala duwan. sidii aynu hore u soo sheegnay, Salmi waxay ahayd gabadh Ilaahay ku manaystay qurux oo boqol lagala baxo, gaar ahaan waxay ahayd qof Ilaahay siiyey dharar iyo laxaad. Salma gelinka hore waxay tagi jirtay maxadka ay wax ka barato, gelinka dambana waxay tagi jirtay meel lagu jimcisado isla markaana lagu ciyaaro kubadaha gacanta, laliska iyo takolegaba. Salma waxay xiisaysay ciyaaraha kubadda gacanta, kadibna si tartiib ah ayay u baratay ciyaaraha kubadda gacanta ilaa ay ka mid noqotay hablaha ugu cadcad ee naadiyada xaafadahooga u ciyaara kubadda kolayga. Salma maadaama ay ahayd gabadh dheer oo jalaqsan, waxay indhahooda soo jiidatay dadka ka shaqeeya tartanka lagu xayisiiyo dharka faashanka loo yaqaan. sidaas daraaddeed waxay dhowr goor ka qayb gashay goobo lagu qabtay tartanka quruxda dharka ee dalka Jarmalka. Salma tartanka quruxda dharka kama gelin kaalmaha sarsare, haddana waxay noqotay qof ay dadkii daawaday aad ugu majeerteen qurux badnaan, golojoog, wanaag iyo firfircoonaan. Salma waxay noqotay qof u bambaxay hawlaheeda gaarka, haddii ay tahay dhinaca waxbarasho iyo haddii ay tahay hawlaheeda dhinaca ciyaaraha. waxayse marmar soo booqataa hooyadeed Ruun oo hadda caafimaadkeedu aad u soo wanaagsanaaday, kuna tallaabsatay lugaheeda halkii ay awal ka ahayd dhulyaal, iyadoo ay hooyo Ruun dhakhaatiirtu u sheegeen inay muddo baxnaano ahaanayso dalkana aanay ka bixi karin ilaa inta si kama dambays ah loo hubsanayo xaaladdeeda caafimaad. hooyo Ruun raali kama aha sida ay gabadheedu u dhaqmayso, hase yeeshee ma qaadi karto wax tallaabo ah, waayo waxa cid walba ka awood badan sharciga dalka u yaal oo dhigaya inuu qofku xor u yahay wax alla wuxuu rabo, isla markaana aanay cidina ku qasbi karin waxaanu rabin. Salma inkastoo aanay gaadhin halkii ugu xumayd, haddana waxay in badan ku milantay dhaqanka reer galbeedka, gaar ahaan dalkan Jarmalka ee ay ku nooshahay, taasi oo keentay inuu isbeddel weyn ku dhaco dhaqankeygii iyo dabeecaddeedii qofnimo ee Salma ahaan. marka la soo eego nolosheedii dhulkeedii hooyo iyo noloshan Jarmalka ee hadda ku nooshahay. Salma oo awalba ahayd gabadh qurux dhalatay, haddii ay tahay dherer, dhumuc
iyo midab casaan oo ah mid jinniyad leh ayaa haddana waxa quruxdeedii taageero ay ka heshay nolosha wanaagsan ee ay kala kulantay dalka Jarmalka. taasina waxay keentay inay Salma muuq iyo midabba u ekaatay dadka ay la nooshahay ee reer Germany. sidaas darteed Salma qofkii yaqiinay dirqi ayuu ku garanayaa. Salma hooyadeed muddo kadib ayay dhakhaatiirtu ku sameeyeen hubin caafimaad, waxaana dhakhaatiirtu hooyo Ruun u sheegeen inay bogsatay, sidaas darteed ay ku noqon karto dalkeedii maadaama ay ka bogsatay xanuunkii loo keenay dalkan Jarmalka. hooyo Ruun oo aad uga warwaraysa xaaladda gabadheeda waxay ka fakaraysaa sidii ay inanteeda u soo kaxayn lahayd, ay ugu celin lahayd dalkeeda hooyo, uguna geyn lahayd aabaheed. hooyo Ruun iyo Mursal waxay isla gorfeeyeen sidii Salma loo celin lahaa, maadaama aanay Mursalna u jeedin hooyo Ruunna ay tegayso, iyagoo oo ka walaacsan waxa uu Salma mustaqbalkeedu ku dambayn doono. dabadeed hooyo Ruun ayaa galabtii dambe u yeedhay inanteedii ay ku curatay kuna dhalmadaysay ee Salma, waxaanay ku tidhi hooyo, maadaama aan bogsaday dalkii iyo dadkiina aynu muddo dheer ka soo maqnayn, waxaa loo baahan yahay in aynu mar dalkii dib ugu laabanno oo aynu muddo soo joogno, dabadeedna aabbana soo kaxayno oo aynu soo wada noqonno. hooyo Ruun weerahan way ku khiyaamaynaysaa inanteeda, waayo waxay rabtaa inay meesha ka saarto hodhowna marka ay dalkii tagto loo taliyo. Salma waxay hooyadeed ugu jawaabtay, hooyo anigu tegi maayo oo hawlo badan baa ii socda, ee adigu iska tag, mar kale ayaan kaa daba imanayaaye. hooyo Ruun taa may yeelin, ee waxay gabadheedii cadaadis ku saartay inay raacdo. Salma waxay dhaga adeegtaba markii ay islaantii ka tegi weyday ee ay marba dib uga dhacdo waqtigii ay tegi lahayd, ayay Salma markii dambe ogolaatay inay muddo 3 bilood ah soo joogto dalkii, kadibna ay dalkan Jarmalka dib ugu soo noqoto. sidaas darteed Salma iyo hooyadeed Ruun waxay u diyaar garoobeen safar dhulkoodii ah. Mursal iyo Salma xaaladoodu kama soo rayn, sidii ayayna u kala maqan yihiin welise ismay furin, laakiin Mursal iyo idadii Ruun way is og yihiin oo qadiyadda Salma way ka tashadeen. sidaa awgeed Mursal isaga ayaa qabanqaabinaya ama baxa Ruun iyo inanteeda Salma. maalintii dambe ayuu Mursal goor aroor hore ah idadii Ruun iyo inanteedii Salma ee isagana xaaskiisii ahayd uu geeyey garoonka diyaaradaha, wuxuuna ku hubsaday diyaarad toos u tegaysa madaarkii ay ka soo duuleen ee Hargeysa. waxayna maalintii dambe Salma iyo hooyadeed ka soo degeen madaarka Hargeysa, waxaana garoonka kaga hor yimid xaaji Abtidoon oo ah Salma aabaheed iyo Ruun odageedii. sidaa awgeed Salma iyo hooyadeed waxay yimaadeen gurigoodii oo ay ka maqnaayeen muddo 4 sano gaadhaysa. Subeer inkastoo ay Salma xumaysay oo ay xadhigga u jartay markii ay Yurub tagtay, haddana qalbigiisa kamay maydhmin muxibbadii iyo xasuustii galgacalkii gaamuray ee uu hayay Salma. 2 maalmood kadib imaatankii Salma ayay Subeer gabadhii walaalaha ahaayeen u sheegtay inay Salma timid, waxaana ku tidhi, walaal, gurigii reer Abtidoon waxa yimid Salma iyo hooyadeed oo Jarmalka ka yimid. Subeer inkastoo ay meel yara damqatay, haddana markii loo sheegay warka Salma dareenkiisu wax weyni iskama bedelin, waayo wuxuu ogaa in aanay Salma maanta waxba ugu filnayn oo Jarmalka lagu guursaday oo ay nin kale ooridiisii tahay. isla markaana Subeer ma oga in Salma iyo Mursal aanay xaaladoodu wacnayn. Salma markii ay 3 maalmood joogtay ayay ogaatay inuu wiilkii Subeer magaalada joogo, isla markaana aanu weli guursan. hase yeeshee Salma ma hayso weji ay Subeer ku hor tagto, oo xataa inay soo salaanto way ka weji gabaxday, waayo wixii ay fashay ayay ogtahay, waxayna aaminsan tahay inuu Subeer colaad iyo calool xumo u hayo. balse Subeer isagu sidaasi si ka duwan ayuu u fakarayay, mana aaminsana inay ka gashay dembi sidaa u weyn, laakiin wuxuu arkaa inuu calafku yahay wax qoran oo aan meelna laga dhaafi karin. sidaas darteed uu Mursal yahay ninkii ay Salma calafka isku lahaayeen, calafkuna uu waxba kama jiraan ka dhigay waayihiisii caashiq iyo riyadiisii rabitaankii Salma. Subeer inkastoo ay weli xasuusta qalbigiisa ku laaqan tahay muxibbadii iyo kalgacalkii ay Salma ku beertay, haddana qalbigiisu xiisaha Salma wuxuu ugu dhololayaa sidii uu maalmo ka mid ah waayihiisii caashiqa ugu dhololi jiray. guuldarradii uu Subeer kala kulmay caashiqii uu beeray ee dhex maray isaga iyo Salma waxay qalbigiisa ku beertay bayr iyo didmo uu ka qabo dhinaca haweenka. sidaas darteed Salma kadib gabadh kale dibnihiisa umuu kala furin,
marka lala soo hadal qaadana waxa qalbigiisa damqada xasuustii jacaylka lafaha guray iyo siduu faro maran uga joogo beertii caashaqa ee uu maalmo badan dhiiggiisa ku waraabiyey. Subeer marar badan ayuu aabbihii u soo jeediyey inuu guursado oo uu ku yidhi aabba guurso, laakiin marmarsiiyo iyo marba horta arrin baan soo qabanayaa ama inoo soo qabanaya aabbo ayuu cudurdaar uga dhigi jiray diidmadiisa. waxyaabaha uu Subeer odayga aabbihii ah ku qancin jiray waxaa ka mid ahaa hindisyaal la xidhiidha hawlahooga ganacsi, wuxuuna marba soo bandhigi jiray qorshe uu ka hormarinayo hawshooda ganacsi, taasi oo odayguna u guuxi jiray, waayo qorshe kasta uu Subeer ku soo kordhiyo hawsha ganacsigooda waxa uu noqdaa mid laga dhaxlo horumar iyo kobac dhaqaale, taasoo keentay in ay yeeshaan shirkad weyn oo keenta ama soo dejisa alaabta dhismaha. Subeer inkastoo uu maqlay inay Salmi timid haddana umu tegin, waayo maadaama aanay oori u noqonaynin wuxuu is yidhi yaanay aragtideedu kugu soo kicin hurgumo kaa ligdan iyo dookh aad la dheelido. ta kale wuxuu xoogaa walaaca ka qabay in Salmi haddii ay doonto ay salaantaba ka qaadi weydo, maadaama ay ka danaysatay Subeer iyo waayihiisii caashaqa. sidaas darteed dareenka noocaas ahina wuxuu ka mid yahay waxyaabaha Subeer ka walaaciyey inuu Salma soo booqdo. hase yeeshee Salmi markii ay joogtay muddo 20 cisho gaadhaysa ayay maalintii dambe go'aansatay inay Subeer soo salaanto kuna tiraahdo walaalo iska kee cafi, waxayna hoos ugu xashashaqday oo ay tidhi allaylehe wixii dhacayba dhacee waa inaan Subeer u tagaa oo aan ku idhaahdaa walaalo iska kee cafi oo aynu noqonno dad walaal ah, maadaama aynu kala fogaanay oo uu gidaar weyni inoo dhexeeyo imika. Salma aad bay u yaqiinsan tahay inay Subeer xumaysay oo ay godob ka gashay, sidaas darteedna markii ay dib u soo noqotay ee ay timid meel ay uga baxayso sanqadha Subeer, waxay taasi dareenkeeda ku beertay damqasho badan, waayo waxaa nafteeda ku beermay waxoogaa tiiraanya ah, taasoo ay xasuusteedu la walaalowday sidii ay Subeer u xumaysay. Salma markii ay go'aansatay inay Subeer u tagto ayay waxay waxoogaa ka fikirtay qaabkii iyo meeshii ay ugu tegi lahayd. hase yeeshee maalintii dambe ayay goor galab ah intay si la yaqaan oo cajiib ah u soo labisatay waxay isa soo hoostaagtay geedkii ubaxdhigga jacaylkooda uu ka bilaabmay 4 sannadood ka hor. geedkaasi wuxuu ahaa geedkii ay ku ballami jireen mar kasta oo ay kulmayaan, wuxuuna geedkaasi ku yaallaa meel u dhow guryahooda, gaar ahaan wuxuu ku yaallaa meel loo maro dukaanka Subeer aabbihii marka laga tegayo guriga Subeer iyo reerkooda. Salmi markii ay muddo ilaa 40 daqiiqo ah ay hoos taagneed geedkii ayuu Subeer markii dambe ka soo baxay gurigoodii isaga oo u sii socda xafiiskii shaqada. Subeer markuu guriga ka soo baxay wuxuu gacanta ku sitay dhowr xabo oo bugaagta xisaabaadka ah iyo shandad gacmeed nooca waraaqaha lagu qaato ah, wuxuuna ku labisan yahay surwaal madow iyo shaar cad, isla markaana wuxuu galabtaa doonayaa inuu soo xidho xisaabaadkii bisha iyo inuu mushaharooyinkii u diyaariyo shaqaalaha maadaama ay bishii dhammaatay, iyadoo ay shirkadoodu noqotay shirkad aad u ballaaran oo dalka intiisa badan laamo ku leh, ayna gobollada u joogaan wakiilo iyo dad shaqaale ah. Salma waxay taagnaato oo ay Subeer bidhaamiso bal inuu guriga ka soo baxay iyo in kale ayay markii dambe si lama filaan ah isha ugu dhufatay Subeer oo guriga ka soo baxay, kadibna cagta soo saaray waddo hoos marta geedka ay hoos taagan tahay. muuqaalka Subeer wuxuu dareenka Salma ku riday khalkhal iyo baaxad deg weyn, wuxuuna dareenkeeda maskaxeed tusay sawirro badan oo isdhex qaadaya. mar way naxday oo waxay istiri talo ma iska dhaqaaqdaa oo ma ka dhuumataa, marna waxay keentay farxad oo waxay xasuusatay ayaamihii wacnaa ee waayaha jacaylka iyo sidii uu qalbigoogu isugu soo muhan jiray iyadiyo Subeer marka ay ballanta ku leeyihiin geedkan ay hoos taagan tahay. kadibna waxay isku qancisay ha ka dhuumane sug oo salaan. shucuurta Salma kor iyo hoosba waxa hareeyay daruuro walaaca, waxa korkeeda ka soo booday dhidid burbuuran, hiinraaga feedhaheeda ka baxayana waxaad moodaa in 100 mayl la soo baacsaday, waxayna ku waalatay dhaqaaq joogsi, waxayna xaaladdeedu ka dhignayd ma tagtaa ma joogtaa weli waan tallamaya. Subeer wuxuu soo socdaa meel qiyaastii noqonaysa kala badhka guriga iyo geedka dhexdooda, guriga iyo geedkuna waxay isku jiraan waxaan 100 tallaabo ka badnayn. sidaas darteed haddii aanay Salma meeshaas ka dhaqaaqin 2 daqiiqo kadib ama ka yarba iyadiyo Subeer way isuran yihiin. laakiin gabadhii Salma qaybta jawaab celinta ee maskaxdeeda ayaa khalkhashay,
oo joogid iyo tegis midna ugu talin weyday waxayna ku waalatay talo ma iska tagtaa mise waad iska joogtaa subeerna kaabiga ayuu u soo saaran yahay salmina weli may go'aansan inay meesha ka dhaqaaqdo oo ay subeer ka dhuumato iyo inay calool adeegto oo ay iska sugto عجب تلو maxay noqon salma waxay geedka hoos taagnaataba oo ay waji gabax la calooliyowdaba waxay aakhirkii go'aansatay inay u babac dhigto wajiga subeer salma sidii dambiile la qabtay ayay hoos u foorartaa subeerna wuu ku soo dhow yahay laakiin subeer maskaxdiisa kuma jirto salma ayaa geedkan hoos taagan ama ku imanaysa sidaas darteed bannaan ayuu iska soo socdaa oo ma aha ninka burkaba bahal ka filaya hase yeeshee markii uu marayay meel la gudboon halkii ay salmi taagnayd oo 3-4 tallaabo u jirta ayuu dhanka bidix jaleecay mise wuxuu isha ku dhuftay qof dumar ah oo aan wajigeedu ku cusbayn dabadeedna isaga oo hoosta iska weydiinaya qofkan aad wajigeeda garanayso ee meesha taagani muxuu ahaa ayuu niyadda iska yidhi salma hoos bay u foorarsatay oo indhaha may siin kareen subeer laakiin markii uu istaagay ayay soo eegtay iyadoo wajiga gabax weyne ka muuqdo balse eegma mooyaane wax hadal ahi salma kama soo bixin subeer wuxuu gartay in qofka meesha taagani ay salma tahay kadibna xaggeedii ayuu u soo dhaqaaqay isaga oo yaaban laakiin markuu ilaa 3 tallaabo u soo jiray ayuu istaagay intii aanu midina midka kale la hadlin ayay salmi indhaha sacabka saartay si ay isaga masaxdo ilmo buurbuuran oo ka soo yaaday قلبكو قشوعه نفتكو قرشيه قراءاتكو دافتي ماذيكا قديدله ماذيكا قديدله la soco qaybta 9aad ee sheekadan xiisaha badan ee xishoodka hablaha iyo xanuunka jacaylka قلبكو قشوعه نفتكو قرشيه قراءاتكو دافتي